madaxa dugsiga sare Garissa High Maxamuud Maxamed Dubad ayaa ka hadlay xaaladda carruurta waxaana uu dhaliil u soo jeediyey waalidiinta taasoo uu sheegay in ay carruurtooda dabagal ku samaynin isla markaana ay la socon marxaladda ay ku sugan yihiin carruurta markaasay maalmo waxay tiri eeday wiilkayga hebel aha raashin buu ii keenay waan ku noolaaday markaasaan maama wiilkaan ku keenay intuu ka shaqeeya wallahi ma sheegi kari bay tahay laakiin galabtee sonkor buu ii keenay mboogu ii keenay waxbuu ii keenay wiilka muxuu noqday wiilka markii dambe chokora buu noqday waxaana maama wiilka wuxuu soo hadahayaa hadda qabo dugsiga iskuulka laakiin hadda wuxuu keenahay macaansani way macaansatay maalintii dambe wiilka chokora buu ka noqday soo dhigma mid labaad canug waad iskuul geysatay canug yaad iskuul geysay ama secondary ha noqdo ama primary ha noqdo maadan dabagelin canuga subaxdii uu kaa soo labisan iskuulkan uu kiic uu dhihi waxba dhici kartaaba inuuba teginba iskuul inuuba teginba anu waxaan arkay wiil walaashay dhashay yaan anoo ka imaaday nairobi berigaa nairobi aan joogay yani waryaa keen buugashaada keen buugii markaan fiirisay 2 bilood waxaan muu qoranin 2 bilood waxaan muu qoranin war maxaa dhacay in abay heen wiilkan soo iskuul ma aadeen abay subax kastaan wayga kala subax kastaan wayga kala daamu way aadeen ma oogi subaxdaan iskuulkaan aaday wiilka galaaska dhex fadhiya galaaska dhex fadhiya waxaan u yeeray macalinka u tagay macallin waxaan dhahay wiilkan 2 bilood waxaan muuna qorin maxaa galaaska waxaan lama baramay study 2 ba marka ayada waxaan lama baramay anu kala soo qaaday buugaan feerinayna kan kala feerinayna kana ila saak uu qortay kana waxaan qoray galaaskan uu dhex fadhiya galaas uu dhex fadhiya nafta baan ka gooyin gaaray ana garaacay macalinka garaacay stand tuba wiilkii wuxuu noqday ninka ugu wanaagsan maanta masters waa haysta bariga hadaan la qaban muxuu noqon lahaa gabadh walaasha waxay tiri khayr allah siiye ninka iga tagay baa walaalka ii keeno ilaahay baa ii soo celiyay wiilku waa nin wadaad ah saak quraanka soo akhrin ma maleyn kartid iskuulkana masters waa haysta maxaa keenay daba socod aw chief daqo chief daqo walaalkiisa iskuulkayga dhigta koono keen uu daba galay maanta masaajidka markaan ku tagay ana sabka horaan ku tagay way ag fadhiya wiilkii maxaa keenay daba socod carruurtan la sii daynayo oo aadan waxbarashada ku daba socon dibkaada ilaah marka waxaad samaynaysaa carruurta la daba socdo oo waxbarashadooda laga warqabo canugan haddaad daba socon weydo waxaa jira maalin markuu form 4 dhamay waxban ma helay markuu helay waxbuu rabaayo xooluu rabaayo muxuu samayn inuu wax dhaco inuu waxado waxoo dhan buu keenay marka carruurta intay ku jiraan iskuulka loo heeliyo Soomaali waxay tiraa canuga wiilkaaga goormuu hiila kaaga baahan markaad hooyadiis hasha maanta hooyada markaa guursanayso hiila kaaga baahan carruurta wax baranayaan waxay hiila kaaga baahan markay iskuul ku jiraan waxbarasho markay ku jiraan haddaad daba socon weydo maalinta dambe u weynaado waxbana kuma karayso waxana ma hayo adoona wax kaa raba waa labaad tan saddexaad ee dhibka ugu weyn Soomaali hayso waxa weeye canug baa iskuul ugu kari waayo markaad wax kari weydo dawladda la kaashata children sajira waxa jira police baa jira waa la kaashada canugi waxbaad ku kari weydi maalinta dambe iskuulku ka tagi cid uu ku fariisan dharka ugu fiican buu qabaa dharka ugu fiican baad u soo gaday raashinka ugu fiican baad siin sariirtu ku saxan waa sariir fiican baad siin subhanahu maalintuu gaaro qaangaar waxaad aabo naag soo raato waad u dhisi islaanti waad u beeli waa kaaga u horeeyay kii labaad muxuu sameeyay eeshaga muxuu sameeyay dakhar maalin maama ay imaatay aloon haris way dhimatay waxay tiri macallinow wiil baan kari la ahay waxaan geeyay iskuul la dhig caalim baan geeyo waan ka soo qaaday iskuul kale aan geeyo wiilkii waan kari la ahay oo alleelay iskuulkii baan ku kari la ahay markaas aan hebel aawe ciduu joogaa
reer muule ha wajo meeqa carruur intaas intee uu ka shaqeeyo ma shaqeeyo yaasi wiilka abtay oo taga u ahaa walaalkay ahaa Norway jir yaa biil u soo diray guriga u dhisay islaana u dhisay koo kii hebel waa sida soo kale kii hebel asar hadii wiilka jidku rabay u daabaan asagana naagna loo dhiso hana loo bilo waa runade marka waxa weeye haddii carruurta nimankan qoyskan kala canuga waxbarashadiisa haddii ka waxa weeye waa uu tag waxaa la dhihi aniga waxbaan ku bari laakiin wax kaloo uga leedahay male hadduu aad wax baran weydo soco kibarwaad raadso maxaad riixdaa maxaa la dhihi jiray wilbaro raadso laakiin anaga maxaan samaynaynaa guri baan u dhisaynaa naag baan u dhisaynaa dhar baan u gaday carruurta aan u beelaynaa hataa carruurtiisa wax bari maalinta aad dhimato haddii ilaahay buu qabaa sooma laakiin inta hore adaa wada kii kale way isku dabadaynaya canuga waa dhici kartaa inuu edeb darro wax u baran waayo inay maskaxdiisana ay adag tahayna way dhici kartaa hadday noqoto canugan inuu fahamkiisa xun yahay waxaa jira alternative education waxaa jira dhisma technical ed waxyaabo badan oo farsamo gacan baa lagu barta electricals aa lagu barta oo canuga standard hadduu soo dhamay u geli kara marka haddaad aragtay iskuulkan inuu la qabsan waayo oo fahmad darro ay keento qasab ma inuu foonfo dhameeyo qasab ma waxaa weeye markaad aragtay inuu fahmadiisa ay xun tahay meel kale ha lagu raajo waxaa dhici kartaa inuu ninka kugu fiican u noqdo ninka kugu fiican inuu noqdaa dhici karta waa mid kale oo na dhibayso oo anaga aan samaynayna carruurtii ma fiirinayno iskuul baan ku daba riixayna waxaana dhici kartaa ninka iskuul rasaaqadii inay ku jirto midda saddexaad waa imtixaanka la xadayo waa dhib weyn ayna haysto meel meeshan oo mareer ka karaa jira ma ka saysidin ya meel mareer ka kara Soomaalida maqlay ya lacagta yaa bixinaya mareerka karayaa soo guraya intuu ka imaanaya sheegaya lacagta bixinaya 80 kun baad bixinay canuga ciduu kuu joogi maalinta imtixaanku tagi B+ oo kula iman Sheekh Mukhtaar Xasan كرانجا لون دقي حسن كرانجا اللي يجي جرسم قريس أنا حسن عبد علي ويلكي سومالي شجار كوحي نبى إيه ما يناسره ما لا سوق سهل دقوا عدو يروحان جي ميديسن ولقب سموي وحان جي يوري تيشن ولقب سموي حتى إم بس أنا فروض ما كان B+ ما يكون كان أتصح حد نبكي محركة أنا والد كي معنا أنا برا بنجوجي سكول قبل ده أرد مقعي وحنا القاعدة مقع سعرته يبيع والد كانوا يقول ده بدره معاون عضاتك ها سو ماذا فهم مركا سكولك وما عقلين إنه وحدان عروته وانبري أما ديها هلا أما سيها هلا أما بيها هلا أنا لكن محاول ما حدا لأنه قضيب أي ماذا والد مع أن هي امتحانك وصوص سعودي ما حد عروته قد يارس waxayna macallin waxaan u diyaar carruurta waxbaan baray marka way diyaarsan yihiin ayagoo dhagan hadda dadaalan way ugu soo noqday hadeer waxaan la diray markaas waxaan rabnaa lacag inaan bixino imtixaanka loo gabo imtixaanka waxaan adeer oo aniga kuma jiro had sanadkan soo tagay wuxuu yiri markuu ugu soo noqday niyo iskuulkan aad baa wax loo baray laakiin carruurta aad uma baasaan buu maxaa marka hore canug primary ku soo dhinto macallin ahaysan baa lagu keenay goormo baasi canuga